sida kadiska uu Zinedine Zidane kaga tagay naadiga ayaa loo magacaabay tababaro cusub kadib marka naadiga Malakiga uu magacaabay tababaro cusub kaasoo magaciisu yahay Golan Lopetegui. haddaba tababarahaasi muddada naadiga uu qaban doona lagu cayimay inay 3 sano tahay. wararka kale aan idin haynana website-ka naadiga uu leeyahay Real Madrid tababaraha hadda xulka Spain wada inuu noqon doono tababaraha wadi doona naadiga Real Madrid kadib koobka adduunka ee Ruushka lagu qaban doono markuu dhamaado. haddaba Lopetegui goolwada ayuu ahaan jiray xilli siddeetanaadkii naadiga Real Sociedad ayuu goolwada u ahaa iyo goolwada labaad oo Real Madrid isna uu soo qabtay mar xilliga waxa ugu dambeeyayna goolwada saddexaad uu noqdo naadiga Barcelona. dhinaca kale tababarnimada laakiin kuma aflixin taasoo tababarnimada u qabtay naadiga Rayo Vallecano oo naadi Isbaanis ah iyo muntaxabka Isbaaniya ee 19 jirka da'da ka yar kaasoo ku guuleystay koobka naadiga xulkaasoo kula guuleystay koobka Yurub xulka Spain ee da'da 19 jirka ka yar. kadib isna wuxuu u wareegay naadiga Porto oo laakiin wax la taabto aanu kala iman ama uu kula guuleysan naadigaasi. hadda xulka Spain kiyo wada Spain oo loo weeyahay inuu ku guuleysto koobka adduunka marka loo eego ciyaartooyada magacooda waaweyn ee ay ciyaari doonaan koobka adduunka. haddaba talaabadaas oo Perez uu qaaday in talaabada ay ugu dhow tahay ayaa noo cadaatay kadib marka tababarayaashii loo haweenaa inay qabtaan naadigaasi ay caqdigii iyo naadiyadii ay u shaqaynayeen marka hore ay joogeen loo kordhiyay ayaa xalku kaliya u noqday markaasi inuu tababaraha siiyo hoggaanka. haddaba Perez ka soo baxaya tartanka dhex yaala Isbaaniska Copa del Rey iyo La Liga iyo Champions League ikhtiyaarka uu doortay daawada. haddaba ra'yiga ka dhiibo inuu ku saxsanaa ama ay xal kale uu u waayay arrinkaasi.